dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay tafaasiil ka bixisay nooca heshiiska diblomaasiga ee Itoobiya ee la gaaray. waxay sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ay banaanka keentay waxyaabaha Itoobiya la isku afgartay. haddaba xagee buu ku dambeeyay arrintii la xiriirtay saldhigga ciidamada badda Itoobiya ay ka raadinayeen Soomaaliya, taasi oo ay dadaal badan ku bixinaysay dowladda Addis Ababa. Itoobiya heshiiska lala galay ma waxa uu noqon karayaa mid saameyn muddo dheer jiri doona mase noocii farsamada ayaa weli dhiman? maxay tahay aragtida dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wax ku xallisay? dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay markii ugu horeysay tafaasiil ka bixisay halka uu ku dambeeyay damcii dowladda Itoobiya ee la xiriiray arrimaheeda batraadinta iyo waliba saldhigga ciidamada badda Itoobiya ay ka doonayeen inay ka helaan biyaha Soomaaliya, taasi oo ahayd walaaca ugu badan oo Soomaali fara badan ay ka muujinayeen isbedelada siyaasiga ee gobolka Geeska Afrika iyo damaca gaamuray ee xukuumadda Addis Ababa ee rejiimka Abiy Ahmed uu garwadeenka ka yahay. haddaba wasiirka amuraha dibadda Soomaaliya Danjire Axmed Macalin Fiqi ayaa waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya oo qoraal siiyay telefishinka afka Carabiga ku hadlay Al Jazeera ee dowladda Qatar ay leedahay ee saldhiggiisu yahay magaalada Doha. waraysiga oo dhinacyo badan taabanaya ayaa marka ugu horeysay Axmed Macalin Fiqi waxa wax laga weydiiyay bal halka lagu ebiyo khilaafkii u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhigeeda Itoobiya, iyo waliba halkii uu ku dambeeyay damcii dowladda Itoobiya ee ku aadanaa saldhigga dhinaca badda Itoobiya ay ka doonayso ciidamadeeda inay ku yeeshaan gudaha dalkan Geeska Afrika ku yaala. laakiin wasiir Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu sheegay in damcii Itoobiya la shiray isla markaana aanu jiri doonin wax saldhig ah oo ciidamada badda Itoobiya ay ku yeelan karaan Soomaaliya, kaasi oo laga kiraynayo muddo 50 sanadooda. waa hadalkii ugu cuslaa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ka soo baxay oo ay ku faahfaahisay sida loo xalliyay arrintii diblomaasiga ahayd ee labada dal u dhaxaysay. laakiin marka la weydiiyay manfadka baxriga ah ama badda halka Itoobiya ay ka galayso ay Soomaaliya ka doonaysay amaba si kale haddii loo dhigo in Itoobiya badda ay ka gaarto Soomaaliya waxa lagu xalliyay, waxa uu yiri bisha February ee soo socota wufuud labada dhinac ka kala socota ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa fariisan doona magaalada Ankara waxaana isla qaada dhigi doonaan sida arrintaasi ay wax noqonayso. waxa uu mar kale ku celiyay arrinta kaliya Itoobiya ee ku aadan inay badda ku gaaraysa ay tahay mid ganacsi ah, taasina ajandaha iyo siyaasadda iyo hadafka istiraatiijiyadeedba dowladda federaalka ee Soomaaliya ay yeelan karayso. waa heshiis ganacsi oo labada dhinac dhexmari doona ayuu yiri, laakiin marnaba ma jiri doonto qorshe militari oo Itoobiya doonayso badda Soomaaliya inay cagaha ku soo geliso. tani waxa ay dabar wareemaysaa damcii Abiy Ahmed iyo rabitaankii Itoobiya ee ku aadanaa inay noqoto Itoobiya booliis badda cas ilaaliya iyagoo uga gudbaya xeebaha dalka Soomaaliya badda cas inay ku gaaraan. tani waxay ahayd rabitaan dowladda reer galbeeda ay dabada ka riixayeen, laakiin waxaa muuqata dowladda federaalka ee Soomaaliya arrintaasi inay garabka ku dhufatay Itoobiyana ay ku aamustay ku qabatay iyo waliba diblomaasiyadda dagaalka inaanay ku sii jiri karin. haddaba dowladda Itoobiya weli kuma dhawaaqin inay ka tanaasushay is-afgaradkii ay la gaartay Somaliland ee xilligii Muuse Biixi Cabdi uu hogaaminayay, kaasi oo ku saabsanaa in muddo 50 sanadooda laga kireeyo saldhig ciidamada badda Itoobiya ay ku yeelanayaan xeebaha Somaliland. laakiin dowladda federaalka ee Soomaaliya waraysigan ayay daha uga qaaday arrintaasi. waxaase la eegi doonaa sida Itoobiya arrintan ay uga jawaabi karayso iyo hadalka ka yimid dowladda federaalka ee Soomaaliya. laakiin weli waa dood furan, Soomaaliyana ay ka sheegatay guulo degdeg ah in halkaasi ay ka gaartay.